nin saalixiinta ka mid ah inankiisa markuu la dardaarmayo wuxuu ku lahaa laba weliga ha iloobin buu ka yidhi labana weliga ha xasuusan lacallahu luqmaan alxakiim inuu ahaa marartu bikathiirin min alambiyaa buuhi nebiye fara badan ayaan suxbad la soo yeeshay majaalistoodii 8 mas'alo ayaan ka soo faa'iidaystay buuhi ee iga bara inankaygiyow haddaad salaada aad tukanaysana qalbigaaga ilaali dad haddaad la fadhidana carabkaaga ilaali cunto haddaad cunaysana calooshaada ilaali aqal dad haddaad gashana indhahaaga ilaali buu ku yidhi haddaad salaad tukanaysid qalbigaaga ilaali oo qalbigaagu yuunan meel kale u jeesane qalbigaagu salaada dhexdeeda ha ku mashquulo allah caza wajal allahaad hor joogto qalbigaaga ku mashquuli dad haddaad la fadhidana wuxuu ku yidhi carabkaaga ilaalso aqal dad haddaad gashana indhahaaga ilaalso cunto haddaad cunaysana maaragtaane calooshaada ilaalso labana weligaa ha iloobin buu ka yidhi labana ha xasuusan labada uu ku yidhi ha xasuusan waa labadee dadka wanaagga aad u samaysid weligaa ha xasuusan buu ku yidhi dhibaatada adiga ay kuu geystaan ha xasuusan buu ka yidhi اثنان لا تنساهما واثنان لا تذكرهما buu ka yidhi laba weligaa ha xasuusan haba hadal qaadinba إحسانك إلى الناس وإساءتهم إليك wanaagga dadka aad u samaynaysid weligaa ha xasuusan haddaad ummadda aad wanaag u samaynaysid ilaahay dartii ugu samee haddaad cilmi baraysid ilaahay dartii u bar haddaad u ixsaan samaynaysid ilaahay dartii ugu samee haddaad u shafeecad qaadaysid ilaahay dartii ugu shafeecad qaad haddaad wax dayminaysid ilaahay dartii u daymi waxaad dadka u qabanaysa wanaaga marka u horeysa waa inaad u qabataa alla dartii dhibaatada dadku ay kugu sameeyaanna weligaa xasuusan buu ka yidhi iska ilow waxaad ahaataa saliimu sadri qof qalbigiisu mar walba uu yahay nadiif dadka ixsaankaad u samaynaysid haddaad mar walba aad dadka ka sugta inay abaal ku celiyaan waxaad noqonaysaa inaad waxaad halis u tahay inaad ku dhacdo mannaan gallad sheegta inaad noqoto aad halis u tahay gallad sheegte gallad sheegtana waayo هو إلهي صدح واكي نبي قولها عليه الصلاة والسلام إلهي مالك قيامها صدح لحظ مايو حقوقنا إلهي دايمون مايو ذنبنا إلهي كرداف مايو عذاب كلول أودرنا وإليهين صدح جرب نبي قول إريدا كعليي أبو ذر الغفاري أيايري خابوا وخسروا منهم يا رسول الله ويهوغين وين خسارين كواسي أييه نبي الله نوشك مرقاب نبي قول المنان وكذلك قلت شيكت ابو رسولك يدي قلت شيكت qofka mar walba dadka yiraahdo waxaan ku sameeyay anigu haban ku qabtay ana magaalada ku soo galiyay midba kula ya dadka la mid buu ana qof ka dhigay kan ma adarkii buu dadka ana qof ka dhigay buu oo marka hore ma dameer buu amsadaayeer yani kalaam hadal yar oo basiida qofka si dhib yar uga soo baxaya khatarna uu ku galaya qof أنا سمية أنا وحكار دقي أنا ضدك كوكو دري هذا أنا جرين ما بجرتين ماي وأنا ضحاتا مركو أهري سبع هذا مدى وحقوق بنا سيله درت وحقوق به لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إخلاص هو عجيب الله ينسي إخلاصك من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه حديث القدس إلهي وكيلها من عمل عملا قفك عمل سمايا دونك دوشيدا عمل كاسو سمايينا انيغا عيد كلا يقول لريبا الهي اي شريك يلي عمل كيسا iyo shirkigiisa qiyaamaha waan uga tagaaba ilaahay yiri saddexda qof ee ugu horeysa uu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam ee naarta lagu tuuri doonana waa saddexdee waa caalim waa taajir sakhi aha iyo nin mujaahid ahaayo loo maleynayay inuu diin u dhintay صدح عمل هو وين بين لا إيمانيان كانوا مجاهد بوها كانوا وحوها عالم بوها ومضوا علم جبر يقاربوها كانوا وحوها ما رجتان السخيم مالقبين أيها يحوله سوء بحجري صدح ده عمل اللي مادن إلهي هرتي صدح ده عمل بوحة كلنا ما رجتان الشرك بكلنا لأن مركز إلهي أرنا يا هذا دمتي واد صور دمتي لكن أنا قدرت وما صور دمنه إن لقاير هذا هبل وانين دقاليها أيها صور دمتي وأنا اللي adiguna qaariba aad ahayd quraan akhris fiican ama waacid umada wacdi ayaad ahayd oo dadku ay hadalkiisa dhageystaan
wacdiga markaad jeedinaysid ummadda wax u sheegaysa ama aad wax baraysidna aniga dartay umaad barayne hebel waa nin caynkaasoo ummadda wax u sheego carab fasiixi ayaa hal lagula yidhahdaa islahayd kanna waxaa la odhanayaa adiguna nin maalka bixiyaad ahayd oo meel kastoo khayra xoolaha waad ku bixinaysay hadday masaajid tahay hadday madaaris tahay hadday aytaam tahay laakiin waxaad u bixinaysa waa hebel waa sakhi hal lagu yidhaahdo saddexdiinnaasi waa laynii yidhi adduunka dusheediiye agtayda waxaad ku leedihiin waa naarta ku tuura la odhan doonaa xadiidka abaa hurayra radia allaahu canhu markuu sheegi jiray uu ooyi jiray uu kici jiray uu dhici jiray waa la kicin jiray uu ooyi jiray uu kici jiray markay naftu ay ka bixi inay ka baxda halis u gaadho ayuu xadiidka nebigu ka maqlay uu sheegi jiray lilaahi waa inuu ahaada qofka muslimku waxaa dadka u qaban ilaahay dartii ugu qabo waa inaad ku doontaa camalkaaga aakhiro camalkaaga adduunyada ha ku doonin cabdillaahi ibnu mubaarak raxmatullaahi calayh ayaa lagu yidhi maninnaas dadi ayay yihiin noo sheeg markaasuu yidhi alculamaa dad haddaad i weydiiseen dad waxa weeyaan waa culammada waa dadka ilaahay cilmigiisa yaqaana waa dadka ilaahay yaqaana ee aakhirada yaqaana ee shareecadda islaamka yaqaana dadkaasuunbaa dada markaasaa lagu yidhi famanilmuluuk kuwa haddii aad dad ku sheegtay haddana boqorraduna ayay yihiin markaasaa yuu yidhi azuhaad waa dadka zaahidiinta ee adduunyada ka zaahiday ee adduunyada bedhbidhkayga waxa dul yaalla waxba aanan u arkayni markaasaa lagu yidhi ma tawaaducana bal noo sheeg tawaaduc muxuu yahay markaasaa lagu yidhi attakaburu cala alaqniyaa dadka hantiilayaasha oo agtaada aan waxba aad u arkin oo agtaada qiima aanan ku yeelan taasaa tawaaduc la yidhahdaa buu ku yidhi markaasaa lagu yidhi faman isufahaa dadka sufahaduna ayay yihiin maangaabka caqliga aan lahayn wuxuu alladii ya'kulu diina biddunyaa waa qofka magac diineed xambaarsan laakiin magacaa diineed haddana dadka adduunyo kaga doonay wejigiisaa diineed adduunyada u isticmaalaya kaasaa safiiha buu yidhi fanuxsin dadka haddaan wax u qabanayno haddaan wax u sheegayno haddaan wax barayno haddaan ixsaan u samayno haddaan infaaqinayno waxay naga noqonaysaa waa ilaahay dartii waxaa kaluu ku yidhi ninkaasi inankiisa markuu la dardaarmaayey dhibaatada dadku ay adiga kugu sameeyaanna ha xasuusan buu ka yidhi waxaad noqotaa qof saliimu sadri qalbi fiican noqo qalbigaaga waa inuu ahaadaa nadiif muuminka qalbigiisu غل iyo xasad iyo buqdi waa inuu ka ahaadaa saliim waa kii nebigu lahaa xadiis fi sunan nin ahlaljanna inagu soo bixi doona nin saxaabada ka mid ah soo galoo soo weysaystay saxaabadu ninkii bay fiiriyeen haddana maalin labaad buu nebigu yidhi nin ahlaljanna inoo soo geli doona isla ninkii baa soo galay haddana maalin saddexaad buu nebigu yidhi nin ahlaljanna inoo soo geli doona isla ninkii baa soo galay cabdullaahi binu camar binu caas radia allaahu canhuma ayaa intuu socday buu ninkii marti u noqday wuxuu yidhi aabbahay baan isa soo diinee in marti qaad markaasuu marti qaaday aabbihiina ismay soo diideen wuxuu rabay keliya inuu arko bal ninkani acmaasha uu ku mutaystay inuu noqdo ahlaljanna ha soo aragtid buu ku yidhi ha soo aragtid buu islahaa iyaku khayrkay ku kala dayanayeen khayrkay u kala badinayeen khayrkay iskaga dayanayeen innagu laakiin maanta maxaan ku kala dayanaa naga zamankeennan dadkii adduunya u tartamayaan adduunya u kala badinayaan caliy bn abi aalib radia allaahu canhu ayaa lagu yidhi sif lana addunya adduunyada caliyo bal noo sifee markaasuu ku yidhi ma asifuhaa maxaa niigu safeeyaa awaluhaa canaa wa aakhiruhaa fanaa wa xalaaluhaa xisaab wa xaraamuhaa cadaab buu ka yidhi maxaan adduunyada ka sheegaa buu yidhi awalkaygu waa canaa waa tacab waa daal bal dadka maanta adduunyada jooga eega qof walba waa daallan yahay inankii baa daallan oo aabbihii baa daallan oo faqiirkii baa daallan oo maalqabeenkii baa daallan oo madaxdii baa daallan oo shacuubtii baa daallan oo hooyaa daallan oo inantii baa daallan oo jaamicigii baa daallan oo kii maalka haystaa daallan oo kii faqiirka ahaa baa daallan kii miiga joogaa daallan kii diyaaradaha waday baa daallan awaluhaa canaa buuhi cali bnu abi aalib adduunyada haddaad ii weydiiseen awalkaygu waa daal waa tacab buuhi waa tacab waa daal maba nasanaysaanba war maa la nastaa ma nasanaysid wa aakhiruhaa fanaa maxaa ka dambeeya dhammaad ama adigaa dhiman ama adduunyadaa kaa hor dhaqaaqay xalaaluhaa xisaab teeda xalaal kugu soo gashayna xisaab baa ka dambaysa wa xaraamuhaa ciqaab teeda xaaraan kugu soo gashay walciyaadu billaahna
وعقوبة الدنيا دوشي دي آخر ولا قوع عقاب حاران تيدا من استغني فيها فتن ومن افتقر فيها حزن بيوري الدون كدوشي دي نيكا إلى هاي هنتي أوصينا هنتي دا وكفد نوبي حساب يدال يرفاض يعريري يولول يولبهار يسترس يولا هو مكجري كأدوية أنا هاي سنة فقير كان نقدين مروق ومكجري سقونا مروق من حساب تهدي بعد ضو خصي من ولول كيجيبها هيو هالكان كهلا ضو بوهيا تصدق معي